booqashadan aan ku tagay deegaanka Higlaale oo 15 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay ku saabsaneed u kurgelidda xaaladda deegaankaasi intii aan ku guda jiray booqashadayda waxaan la kulmay dadka deegaankaasi ku dhaqan iyagoo sheegay inay ka cabanayaan biyo yari caafimaad la'aan iyo sidoo kale waxbarasho la'aan ugu horeyntii gudoomiyaha deegaanka Higlaale Cabdullaahi Cabdikariim ayaa iiga warbixiyay xaaladda hadda deegaanku ku sugan yahay meeshan waxaan ka soo jeedinaa insha Allah taala warbixin kooban oo hadlayna deegaanka Higlaale iyo agagaaradiisa warbixinta waxay ka kooban tahay dhowr qodob ilaa 5 qodob ayay ka kooban tahay mid waxa waaye midda koobaad oo hadda meesha aan taaganahay ka turjumayda iskool laga dhisay deegaankaas Higlaale laga dhisay oo dhabarkanaga ku aadan oo ka dhisteen dadka deegaanka iyo dad jaaliyadaha iskaashaday ayaa meeshan ku soo gabagaboobi rabo hadda wax yar ay u dhiman yihiin awalan waxa ugu culus waxa ay tahay oo meeshan ka codsanayno in iskool laga dhisay deegaankaas oo u baahan yahay agab iyo darbi iyo suuli iyo qalab asaga la dhigo oo qalabkii waxbarasho ah iyo hangar lagu harsado intaas waxa u baahan iskuulka hadda aan taaganahay oo ay dhiseen dad jooga jaaliyadaha dabadda iyo dadka deegaanka oo iskaashaday oo jeebkooda iyo muruqooda iyo taladooda intaba iska kaashaday inta ka soo gudbo waxa kale oo uga hadlaynaa meeshan waxa ka dhisan MCH ay dhistaan dadka deegaanku MCH kaas wuxuu u baahan yahay agabka caafimaadka darbi suuli iyo wuxuu u baahan yahay guriyo kale dhakhtar wax alla wixii ku saabsanaay iskool isbitaalkaas oo uu ku shaqo gali lahaay dadkii dhistay oo ay ugu tala galeen inay xaaladooda caafimaad kala socdaan deegaanka waa inay si degdeg ah u soo gaarsiiyaan hay'adaha caafimaadka dadka jaaliyadaha dabadda waa inay si degdeg u soo gaarsiiyaan sida kuraastii lagu shaqay lahaay miisaskii daawadii dadkii shaqaalaha ayaa ka shaqay lahaay oo caafimaadka taqasuskiisa ahay dhaqaalii lagu bixi lahaay darbigii loo dhisi lahaay dadka deegaanka waa ku yaryihiin 2 qolo kaligooda waaye in loo ziyaadiyo oo intoo kale loogu sii daro marka waxaan rabnaa si degdeg ah arintaas inay wax nooga qabtaan waxa kale jira oo inta ka soo culuso deegaanka jira biyo la'aan hadda waxaan ka nimid oo aan soo booqanay dugsiga deegaanka dhibaatada ka jirta iyo biyo la'aanta ka jirta waa yaabaysaa ilaa 3 dugsi waa gaarayaan mid wuxuu ku yaalaa dhanka bari mid wuxuu ku yaalaa dhanka waqooyi mid wuxuu ku yaalaa dhanka koonfur intaas subatuulada kaliya ku yaalaan dugsiyada hal mid oo ka dhisan tahay meel yar oo xataa roobka loo karto lagu arko waa balbalooyin iyo daashash iyo qurac hoostood ilmaha qoraxa ku hayda roobkii hadii uu maanta u yimaad looxdii quraanka uu ka dhaqaya kitaabiya ka qoyaya war waxaan u baaqaynaa dadka islaamka oo diinta islaamka ku taxalluqa oo ilaahay maalka siiyay kuwa joogan la hadlaya kuwa maqan baan u diraya ha gaarsiiyaan waxaan leenahay si degdeg ah dadkan ay wax u qabtaan waa dadkoodii waa walaalahooda maanta aan haysan waxa ay haystaan marka intaasoo waxa ka sii daran cilbiyood mal dhulku oon baa haysta waa ku $200,000 kaliya ku filan mana haystaan mana awoodaan dadka deegaanka jooga waxa laga yaabaa hal shakhsi oo kaligiisu hadda inta la baxo oo sadaqaysto maalkiisa inay waxba kana suqaamina suuragal war waxaan leenahay maanta waa ماشي النبي كير صلى الله عليه وسلم المال ما تقدمت ومال غيرك وما تأخره مالكينا هرمرسده oo baahida deegaanka ka jirta oo biyo la'aanad waxa qabta sadaqad jaariya waaye intaas baan in kula hadlaynaa Xaliimo Dhagacado oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada iyo horumarka deegaanka ayaa waxay baaq u dirtay dadka waxaysto ee ka soo jeeda deegaanka Higlaale bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxa la yiraahdaa Higlaale waa deegaanka Higlaale waa deegaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala quruxu dhiibay waa deegaan haday dad iyo dal iyo dawlad hesho aad iyo aad macna u yeelan lahaa hadana waxa ka jira oo dadka agtayda tuuran oo mataqaana gees walba iga xago caruur laho haween laho mataqaana arda leh waxa weeye waxa isu soo warwariyo oo weeye haraad bay u go'een biyo la'aan baa haysa caagada waaweyn ayaa naagu waxay uga arooraan meel u jirta intaana qiyaasi karin marka waxa la codsanaya oo iyagu codsanaya oo anagu codsanayna caalamka iyo intii awood iyo islaamka inay u soo gurmadaan ceelaan baa haysa
biyo la'aan baa haysa baad la'aan baa haysa waxbarasho la'aan baa haysa caafimaad la'aan baa haysa intaasoo dhan in laga taageero oo loo soo gurmado ayaan anaguna codsanaynaa iyaguna codsanayaan waa mataqaanaa waxaa ka jira meel waxa weeye dad iska taabiceen ah waa dad aan shabaab lahayn waa dad nabadgelyo ku jooga waa dad dawladooda raacsan waa dad taabiciin ah dawladda sare iyo dawladda hoose mataqaan galmudug intaba waa dad taabiciintooda marka sidaa daraadeed in la iloobo meesha kumaba jirto maba ku jiri taqaan inta qalqiya oo wada taabiciina shacabka in loo soo gurmado ayaan anaguna jeedsanaynaa ugu dambeyntii qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa codsi u diray maamulka galmudug iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxayna ka codsadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto xaaladda deegaankaasi Higlaale aan joogno Higlaale la yiraa aad bay biyo la'aan iyo baahi intaba u qabtaa haate waxa u daran biyaha ceelaa la cabaa ceeshuna waa dhanaan caagadaa la qaataa garab aroora lagu cabaa meel dugsi la'aan cabaar noo jirta dugsi ka oodan yahay geedo ku oodan yahay geedaha ku oodan biyo la'aan ka jirto biyahan u weynaa maxay eeday waxaan ka rabnaa deegaanka biyo in la siiyo waxaan rabnaa waxbarasho in la siiyo wax walba hay'adaha dhan oo caalamka inay nooga soo gaaraan saasiyo ka rabnaa waa baahidaasaan qabnaa biyuhu marna cirku markii nooda kaliya baan helnaa ceel oo dhan ma helno booyaadaan ku dhaansan jirnaa iyaduna way beesa badan tahay dadkuna tankiisu ma wada xamili karo waxa la rabaa in ilaahay hadaan laga waayin in caalamka iyo muxuu hay'adaha dhan inay noo gurmadaan maanta waxaan ka hadlaynaa xilliga aan joogno oonka nagu haaya meesha aan ku noolnahay ee la yiraahdo Higlaale dadka muslimiinka fuusada biyaha waxay ka mareen $3 oo lacag waxa laga keenaa dalalka kala fog booyaduhu marna waa keenaa marna waa keeni waayaan waxaan maanta adduunka uga codsanaynaa dadka islaamiyiinta ku nool maanta oonkaas dhibka nagu haaya oo dugsi haaya oo xaafad duur joogta haaya oo ceelka deegaanka haaya wixii muslim inay wax nagala qabtaan waxaan uga codsanaynaa dadka jaalidaha ama ehelka qaaska ama islaamnimada ah oo diinta islaamka tilmaamayso maanta oon caadi ahayn oo si noo dhibaato galsanahay in kala qayb qaato wixii daryeel oo kale hadda mazaalba meesha aan ku noolnahay booyada haday dhibaato gaarto intaas oo ruux inay u haqdaa suuragal maanta kale waxaan kale marka aan ku daraynaa annaga arintan ilaaha iskale annagu iska malihin ceesha biyaheeda afka qofkii galsha shuman biyooda taabanaya ma la cabi karo wax ma lagu qaybsado wixii xaalad isbedel weyn ka yimid xilligan lagu jiro oo ah xilli cimilada ay aad u kulushahay ayaa sare u qaaday xaaladda biyo yari ee ka jirta deegaanka Higlaale iyagoona dadku aysan haysan nolol maalmeedka biyaha aasaasiga caafimaadka iyo waxbarashada taasina ay ka dhigan tahay biyaha ay cabi lahaayeen oo gaabis galay Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan 5 Somali TV Dhuuso Mareeb